بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أحد أو إسنين أي سو غليسو كوبي صدن كبيش أغسطس سنة كلبكون لباتن يشان أو كوبيغان سديد بيش الربيع الأول سنة كون أفر بقول أفرتنية تضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله إيا برامجكي قبارها قضبدا عاو برامجك آن إذو كوهيننا وحا كمدا warbaahinta Israa'iil oo caawa baahisay dukumeenti sir ah oo muujinaya qirasho ciidanku ay qirteen in ay ku fashilmeen howlgalka gaadiidka Gideon ee ay ka wadeen Gaza. Dukumeenti kale oo ay heshay mid ka mid ah warbaahinta Mareykanka oo bixiyay xogta qorshaha laga damacsan yahay Gaza waxaa ka mid ah 10 sano oo Mareykanku uu maamulayo hoteelo iyo goobo tabashilo oo Trump uu ka dhisanayo dadka oo la barakicinayo sida loo maalgelin doono iyo macluumaad dheeraad ah oo ku aadan sida loogu tashaday dhulka reer Falastiin. Xuutiyiinta oo xabsiga dhigay shaqaale ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay maalmo uun kadib markii Israa'iil duqeyn ay ku dishay ra'iisul wasaarihii dhaqaaqa reer Yemen iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada. Maleeshiyada RSF oo lagu eedeeyay inay weerar ku qaadeen xarumaha shidaalka Suudaan isla markaasna duqeymo dhimasho dhaawac sababay ay ka geysteen magaalada Al-Fashir ee gobolka Darfur. Sheekada ugu dambeysay barnaamijka aridi kugu hayaana waxay ku aadan tahay wado Shiinuhu uu ka dhisay buura dhexdood oo si la yaab leh loo dhisay ayay warbaahintu hadal haysay maalmihii la soo dhaafay. Haddaba maxay tahay wadadan cajiibka ah? Sheeko la yaab leh ayaan idinkaga haynaa. Dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa. aynu ku bilowna caawa dagaalka Suudaan halkaasi oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan. Dowladda waddanka Suudaan ayaa ku eedeysay ciidanka gurmadka degdega ah ee RSF inay qaadeen weerar dhiig badan uu ku qabtay oo lagu bartilmaameystay xarumo shidaal oo muhiim u ah dhoofinta saliidda cayriin ee ka timaada Suudaanta koonfureed ee deriska la ah dalkaasi, taasi oo qayb ka ah kororka colaadda socotay muddo 2 sano ka badan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in weerarka RSF ay ku qaaday agagaarka ceelasha saliidda ee Heglig Sabtidii ay sababeen dhimasho iyo dhaawac shaqaale rayid ah oo tiro badan soo gaartay. Wasaaraddu faahfaahin kama bixin qasaaraha dhabta ah ee dhimashada iyo dhaawaca ama burburka goobtaasi ka dhacay. Waxayse intaasi ku dartay in dowladda Suudaan laga yaabo inay ku qasbanaato inay hakiso howlgallada ka socda goobta sababa la xiriira amniga isla markaasna ay daad gurayso shaqaalaha si loo ilaaliyo noloshooda. Ceelasha Heglig oo ay maamulka u haysa Suudaan waxay ku yaalaan xuduudda lagu muransanaa ee u dhaxaysa Suudaan iyo Suudaanta koonfureed. Geesta kale shabakada dhaqaatiinta Suudaan ayaa maanta waxay sheegeen in 7 qof la dilay 71 kalena la dhaawacay kadib markii duqeyn madaafiic RSF ay ku garaacday magaalada Al-Fashir ee gobolka waqooyiga Darfur ee galbeedka dalka Suudaan. Shabakadaha caafimaadka madaxa bannaan ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in RSF madaafiic ay ku garaacday xaafadaha magaalada Al-Fashir waxaana dhintay 7 qof 71 kale ayaa dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen. Shabakadu waxay ku tilmaamtay wixii ka dhacay Al-Fashir xasuuq dhammaystiran oo lagu fulinayo duqeyn go'doomin iyo gaajaysiin qorshaysan oo lagu hayo dadka magaalada. Waxaynu ugu baaqday bulshada caalamka iyo hay'adaha gudaha inay tilaabo degdeg ah oo wax ku ool ah qaadaan si loo joojiyo duqeynta loona furo marino bini'aadantinimo oo ammaan ah. Tan iyo bishii Abriil 2023 ciidamada militariga Suudaan iyo RSF ayaa ku jira dagaal sababay dhimashada in ka badan 20,000 oo qof iyo barakaca qaxooti ku dhawaad 50 milyan sida ay sheegtay qaramada midoobay iyo hay'adaha maxalliga halka daraasad ay diyaariyeen jaamacadda Mareykan ay ku qiyaasayaan dhimashada ilaa iyo 130,000 oo qof. waa tahay markan balaynu eegno xagga dalkaasi Yemen. wararka ka imaanaya waddanka Yemen ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Xuutiyiintu ay xoog ku galeen xafiisyada hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay isla markaasna ay xireen
shaqaale ka tirsan hay-adahaasi ilaa aan magacooda shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka Jarmalka laga leeyahay ee DBA in ciidamada Xuutiyiintu ay xoog ku galeen xarunta hay-adda cuntada adduunka ee WFP iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhallaanka ee UNICEF ee caasimadda Sanca isla markaasna ay xireen shaqaale dhowr ah waxa ay wareedku tilmaameen in Xuutiyiintu ay xireen ku dhawaad 7 shaqaale ah oo ka tirsan hay-adda cuntada adduunka iyo 3 kale oo ka tirsan hay-adda UNICEF sida ay sheegayaan wareedku ciidamada Xuutiyiinta ayaa dadka la xiray u kaxeeyay goobo aan la garanayn lama oga ilaa iyo hadda sababta loo weeraray labada hay-adood iyo shaqaalahoodana loo xiray iyadoo xogaga Xuutiyiintu aysan weli ka bixin wax faalaha amuurtani ololaha xariga ayaa dhacay maalin kadib markii Xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen in ra'iisul wasaarahoodii Ahmed al-Rahwi iyo wasiiro dhowr ah lagu dilay weerar Israa'iil ay fulisay intii lagu guda jiray kulan ka dhacay Sanca qamiistii hore Xuutiyiinta ayaa horay u xiray shaqaale ka tirsan qaramada midoobay welina xabsiga ay ugu jiraan Xuutiyiinta ayaa ku eedeeyay shaqaalaha qaramada midoobay ee ka tirsan hay'adaha caalamiga iyo kuwa qaramada midoobay inay u basaasayeen Mareykanka iyadoo eedamahaasi ay cambaarayeen dhinacyo badan oo dhalila sheegashada xogaga Xuutiyiinta oo taageero ka helaya Iiraan dhinaca kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan waddanka Yemen ayaa ka dalbaday Xuutiyiinta inay si degdeg ah ku sii daayaan shaqaalaha qaramada midoobay وهجاك معلومات كاسنا هالكاس أينو كجد قدمنا قردو وحن قدبينا وركي قد بيا قزة وربهنت إسرائيل أو عاوة فافنسة دوكومنت سر أو عيدك يكو قرتين إن يكف الشيمان حول قلكي جديد كجديون أي كودين أمريكا قزة سيدو كره وربهنت أمريكا كأي عاوة وحي فافسي معلومات لحديرة قرشها أمريكا قزة لقد مع سيهاي oo waliba ay ka mid tahay 10 sano oo Mareykanka u maamulaya goobtaasi hoteelo iyo goobo tabashilo oo Trump u dhisanayo iyo waliba magaalooyin la sheegay inay yihiin magaalooyinka ku shaqeynaya waxa loo yaqaan AI-ga ama aqliga samayska ah ama artificial intelligence haddaba faahfaahin la yaab leh oo arrinta la xiriirta ayaan idin soo gudbinaynaa hay-ad qaabilsan amniga badaha oo laga leeyahay waddanka Britain ayaa waxa ay tibinaysaa in laga maqlay qarax weyn agagaarka markab gooshayay badda cas lama oga markabkan halka laga leeyahay iyo cidda iska leh iyo cidda weerartay laakiin tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo caawa hogaamiyaha Xuutiyiinta Cabdimaalik al-Xuuti ugu cad ku maray in ay dardar gelin doonaan oo ay xoojin doonaan weerarada ka dhanka Israa'iil intaynu barnaamijka ku jirno wixii warar ah ee arintani ka soo kordha barnaamijyadeen ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijka ama barnaamijyadeena dambe haddii alla idmo wahagaag Israa'iil waxa la sheegayaa duqeyn kala sooc iyo aan kala joogsi lahayn inay ka wado caawa ilaa iyo maanta Mareyka Gaza 79 qof ayaa tan iyo saaka waa bariga lagu dilay meelo kala duwan oo ka mid ah Mareyka Gaza inta marka laga tago dhanka Israa'iil caawa warweyn ayaa ka soo baxay telefishinka kanaal 12 ee laga leeyahay Israa'iil ayaa wuxuu baahiyay goor dhaweyto macluumaad uu helay oo ah dukumeenti sir ah oo ciidanku ay ku qiranayaan in hawlgalkii gaadiidka Gideon waa hawlgalka imika Israa'iil ay ka wado fashil uu ku dhamaaday haddaba aynu eegno warbixintaasi wargeyska uu qoray ilo wareediyaha ayaa waxa ay sheegeen in dukumeentiga uu muujinayo in mid ka mid ah sababaha fashilka hawlgalka uu yahay qorshe la'aan iyo in noocan hawlgalka ay uusan ku haboonayn qaabka dagaalka ee Xamaas kanaalku waxa uu xusay in dukumeentiga uu xaqiijinayo in Israa'iil ay samaysay dhamaan qaladaadkii suurtagalka ahaa gaar ahaan in hawlgalkan aan waqti loogu talagelin bilowgii bishii May 2025 golaha ammaanka Israa'iil ayaa ansixiyay qorshaha hawlgalka gaadiidka Gideon iyadoo ujeedadu ay ahayd in xal ciidan iyo mid siyaasadeed ba laga gaaro Mareyka Gaza iyadoo loo marayo hawlgal 3 weji oo nidaamsan ka kooban qorshuhu waxa uu ansixiyay adeegsiga 5 cadaadis oo la saarayo dhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ee Xamaas si loogu qasbo in ay aqbalaan heshiis iswadaarsi maxaabiis ah iyo in lagu kala diro qaab dhismeedka military ee Xamaas ciidanka Israa'iilna waxay sheegeen
in 10 kun oo ciidamo ah ay howlgalkaasi u adeegsadeen laakiin warka soo baxay wuxuu yahay howlgalkaasi inuu fashil ku dhamaaday sida militariga Israa'iil ay sheegayaan dhinaca kale waxaa la sheegayaa telefishinka kanaal 13 inuu soo tabiyay in Netanyahu lagu cadaadinayo in wax ka bedelo qorshaha dagaalka isla markaasna uu aqbalo heshiis lagu soo daynayo maxaabiista laakiin waxa la leeyahay Netanyahu arintaasi gaashaanka ayuu u daruuray cadaadis kasta oo la saarayo Netanyahu waxa la leeyahay waa uu ka hor yimid dad ku dhib Netanyahu waxay sheegeen in laga yaabo inuu ku qasban yahay inuu ka jawaabo soo jeedinta Hamas inta aan si toos ah loo gelin magaalada Gaza arrimahani dhanka diblomaasiyadda wararka ugu dambeeyay haddii aynu eegno dowladda waddanka Britain ayaa la sheegayaa inay sheegayso inay ka go'an tahay aqoonsiga dowlad Falastiiniintu ay yeeshaan bisha September ee bari dhalanaysa wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu daabacay goor dhaweyto in xogayaha amuraha dibadda ee Britain David Lammy uu sheegi doono baarlamaanka Britain in ay damacsan yihiin aqoonsiga dowlad Falastiiniina oo lagu dhawaaqayo bisha soo socota wasiir Lammy ayaa baarlamaanka hortiisa wuxuu ka xaqiijin doonaa in Israa'iil aysan muujin wax calaamad ah oo ku aadan fulinta dalabaadka dowladda Britain ee ah in la sameeyo talaabooyinkaasi inta aysan go'aansan aqoonsiga dowlad Falastiiniyiintu ay yeeshaan waaye inta marka laga gudbo war weyn baa soo kordhay oo kale halkan sawirka in kaga muuqda waa naqshada laga rabo marayka Gaza in loo sameeyo meeshaas burburtay oo maanta oo kaliya dad 70 qof ka badan lagu dilay oo guryaheedii la sheegay 90% in la burburiyay isbitaal iskuul kaniisad masaajid xarun maamul meel walba la burburiyay hadda waxa la leeyahay waxa soo baxay dukumenti sir ah oo ku aadan waxa laga damacsan yahay marayka Gaza Soomaalidu horey waxay u tiri diinkii wuxuu yiri meeshii lagu tashanayay su'aal lama joogin haddaba aynu eegno warbixintan oo ay qortay jariirada la yiraahdo Washington Post hagaag warbixintu waxay leedahay waxa soo baxaysa faahfaahinta la xiriirta qorshaha 10 sano ee soo socda Mareykanka oo ku maamulayo marayka Gaza maamulka Trump iyo saaxiibadiisa caalamiga ah ayaa waxay ka doodayaan soo jeedin lagu dhisayo goobta tamashilaha ee bariga dhexe dhulka la burburiyay ee Gaza ayaa laga dhisi doonaa waa mid ka mid ah qorshaha uu qeexayo Mareykanku taas oo ah in 10 sano Mareykanku uu maamuli doono marayka Gaza isla markaasna Falastiiniyiinta lagu qasbi doono inay aqbalaan barakicin ikhtiyaariya qorshaha dagaalka kadib ee ay wadaan maamulka Trump ee ku saabsan Gaza kaas oo ku salaysan ballanqaadkii Donald Trump ee ahaa in uu qabsanayo Gaza ayaa u bedeli doona marayka maamul hoosaad Mareykanku gacanta uu ku haynayo 10 sano iyadoo Gaza loo rigi doono goob dalxiis xarumo farsamo iyo weli wax soo saarka teknolojiyadda casriga qorshahan ay aragtay Washington Post ayaa waxa uu ka kooban yahay 38 bog waxaana sidoo kale ka mid ah in si ku meel gaar ah loo barakiciyo in ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool Gaza iyadoo lagu tilmaamay barakicintaas mid ikhtiyaariya isla markaasna loo rarayo wadan kale ama lagu xareynayo meel xadidan oo amaan ah oo gudaha marayka Gaza inta lagu guda jiro dibodiska sanduuqa dhismaha Gaza ayaa siin doona milkiilayaasha dhulka calaamad digital ah oo bedel u ah xuquuqda dib u horumarinta hantidooda taas oo loo adeegsan doono maalgelinta nolol cusub oo ay ka samaystaan meelo kale ama ugu dambeyn lagu bedeli doono guri ka mid ah 6 ilaa 8 magaalo oo ku shaqeeya caqliga samayska ah ama waxa loo yaqaan AI ama artificial intelligence oo laga dhisi doono marayka Gaza macnaha waxa weeye guri baa leedahay ama waxa lagu siinayaa lacag dhulkaagii ama waxa lagu siinayaa calaamad digital ah oo muujinaysa in adigu dhulkaas ku lahayd aan ku socono xogta qof kasta oo Falastiiniya oo doonaya inuu ka baxo Gaza waxa la siin doonaa lacag cadaan ah oo $5,000 iyo deeq lagu bixinayo kirada guriga meel kale oo ka baxsan Gaza oo qofkaasi uu dego 4 sano oo soo socota iyo sidoo kale qarashka cuntada 1 sano qorshuhu wuxuu ku qiyaasayaa in bixitaanka qof walba oo ka tagaya Gaza oo sanduuqa u caymin doono $23,000 marka la barbar dhigo
qarashka hoyga kumeel gaarka ah iyo adeegyada loogu yeerayo taageerada nolosha ee meelaha ammaanka ah ee loogu talagalay dadka haray soo jeedintan oo loo bixiyey sanduuqa dibudhiska dardargelinta dhaqaalaha ee beddelka Gaza ama Great Fund waxaa soo diyaariyey qaar ka mid ah Israa'iiliinta asalkooda lahaa aas-aaska hay-adda gargaarka Gaza ama GHF oo ay taageerayaan Maraykanka iyo Israa'iil kuwaasi oo hadda cunto ka qaybiya gudaha Maraykanka Gaza inkastoo dad badan lagu dilay goobtaas ama goobaha laga qaybinayo gargaarka qorshaha dhaqaalana waxaa kadib ka shaqaynaya koox ka tirsan shirkadda la yiraahdo Boston Consulting Group oo laga leeyahay Maraykanka dad aqoon u leh qorshahan sanduuqa iyo wadahadalada maamulka ee ku saabsan Gaza dagaalka kadib ayaa waxay ka hadleen mowduucyo xasaasiya iyagoo codsaday in magacooda aan la shaacin aqalka cad ayaa su'aalo la weydiiyey wuxuu u gudbiyey waaxda amuuraha dibadda ee Maraykanka taas oo diiday inay kafaalo ka bixiso amuurtan shirkadda Boston Consulting Group waxay sheegtay in shaqada qorshaha sanduuqa aan si toos ah loo ogolaan isla markaasna laba ka mid ah saraakiishii ka howlgalaysay ee hogaaminayay qorshahan shaqada laga cayriyey arbacadii hore Trump ayaa kulan ka dhacay aqalka cad wuxuu la yeeshay saraakiil sarsare iyadoo laga hadlayay fikradda lagu soo afjarayo dagaalka Gaza ee ku dhow 2 sano socda wixii ka dambeeya iyo qorshahaasi la samayn doono ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ahaa xogayaha amuuraha dibadda Marco Rubio wakiilka gaarka ah ee Maraykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff ra'iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair oo laga codsaday in uu bixiyo aragtidiisa maamulka ku saabsan mustaqbalka Gaza iyo wiilka sodonka uu yahay Trump ee Jared Kushner oo kormeerayay inta badan hindisayaasha madaxweynaha muddaxileedkiisii hore isla markaasna bariga dhexe ku leh dana balaaran laba hubin soo jeedinta faahfaahinta Great Fund Trust oo ay tahay markaasi in ay tahay mid maskaxda uu ku hayo Trump laakiin qodobada ugu waaweyn sida la sheegayo oo lagana helayo warkan laba qof oo aqoon u leh qorshahan ayaa si gaar ah waxay sheegeen in la fulin doono aragtida madaxweynaha ee goobta tamashalaha ee bariga dhexe qorshaha sanduuqa ayaa waxaa ka mid ah mid aan ku xirnayn deeq sida ku cad qoraalka waxaa maalgelin dowladeedna ku bixin doona dowlado iyo mid ka mid ah oo shirkadaha iyo dad mashaariicda waaweyn laga iibinayo maalgelinta ay noqonayso xisaabaadka la isku dhufsaday qorshahani waxa ay muujinayaan in 100 bilyan lagu maalgelinayo taas oo soo celin karta baa la yiri 4 jeer muddo 4 sano gudahooda waxaana la sheegayaa in macluumaadkan markii ugu horeysay wargeyska Financial Times ee ka soo baxa London uu faafiyey iyadoo markaas la sheegayo inay jireen shuruudo lagu xiray soo jeedinta haddaba weliba qorshaha hadda inkastoo wargeyska Washington Post oo qorin meelo kale waxay qorayaan meelo ka mid ah inay degi doonaan dad ganacsato ah oo Maraykan ah kuwa Israa'iiliina wadooyinka laga samayn doonana waxaa loogu magac daray laba hogaamiye oo Carbeed oo ka mid ah hogaamiyaasha Carabta ee Khaliijka inkastoo weli aan si rasmi ah loo xaqiijin arrinta marka waxa leeyahay waxaba suurtagal ah inay qayb ka yihiin dawladda Carbeed